السلام عليكم دعوة كسر هذا channel كأوبون وحنا هولالكين دق muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay arin xasaasi ah arinta ugu xasaasana waxay tahay gabadha Bigum Hatumayd waxa arkaysa Sofia markay dilaysay insaan biikiya sidoo kale Sargum ninka la yiraahdo Olga Tuuqan Mudan Uthman waxa uu soo diray ciidan aad iyo aad u tiro badan oo hogaaminaya in lagu magacaabo safety ugu deegdaadista badneed ee Olga Tuuqan gabadha la yiraahdo Sofia Mudan Uthman waxay u dhigtay shirqoolina baan caadi ahayn sababtoo ah waxay ka dhacaysiisay ninka la yiraahdo Olga Tuuqan Mudan Uthman inuu dilay gabadhiisa sidoo kale wiilkii awowga u ahaa waa insaan biikiya sidoo kale Sargum soo dhaw daawade muuqaalka leexar aan sii gudo kala muuqaalkeena hadaba daawade halqadii 186 waxa ay ku dhamaatay gabadhii Sofia la yiraahdo oo shirqool u dhigtay insaan biikiya sidoo kale wiilkeedii Sargum waxaana wada arkiinay in dusha kala socotay wax walba oo dhacay gabadha la yiraahdo Bigum Hatum taasoo iyadna ka soo baxsatay Mudan Uthman CFTC kadib markii booran albi oo dilaa uu ka badbaadiyay walaalkeeda Yusuf isagoo laftirkiisu doonay inuu ka siiyo hadalka Mudan booran uu ku yiraahdana waxa uu ahaa booranow iida tan aniga ayuu dhigeedu xalaal yahay hadaba daawade waxaas weydiinaysaa maxaa hadaba cusub hadaba daawade waxaadan ogeynay qarsoon waxa uu yahay gabadha Sofia la yiraahdo inay qortay laba warqadood mid waxay u dirtay ninka la yiraahdo Olga Tuuqan waxaana uu sheegtay Mudan Uthman inuu dilay gabadhii insaan biikiyeeda isaga uu dhalay sidoo kale wiilkii awowha u ahaa ee Sargum ninka la yiraahdo Olga Tuuqan aad iyo aad ayuu xanaaqay Mudan Uthman waxa uu soo diray abaanduulayaashiisa kii ugu halista badnaa ninkaas oo naanaystiisa la yiraahdo safety dhiigdaadista badneed ee Olga Tuuqan sidoo kale waxa uu soo raaciyay ciidan cadadiisu aad iyo aad u fara badan tahay kuwaasna waxa uu ku soo yiraahday oo soo aara gabadheedii sidoo kale wiilkii awowga aan u ahay aniga dhaxli lahaa ninkan Olga Tuuqan la yiraahdo ninkan uu soo diray waxa uu ku yiraahday iikeen Mudan Uthman ciyaalkiisa xaaskiisa iyo dadka isaga ugu dhadhow si aan argudsi ooga dhigto oo ugu aaro aniga gabadheedii iyo wiilkayga awowha aan u ahaa hadaba ninka la yiraahdo Olga Tuuqan ninkan Mongoliska sidaas ayuu ugu soo diray ninkan Mongoliskiina ma daawade kaliya nin dagaalyahan sidoo kale tawaanin aad iyo aad u caqli badan Mudan Uthman waxa uu doonay in maskaxda uu kala balabeeyo kadibna marka Mudan Uthman uu jahawareero in dhulka uu dhigo oo jirida uu ka gooyo dawladda Urdinka ee uu asaasi leeyahayna halkaas ay ku burburto dhanka kale warqada labaad ee dirtay gabadha la yiraahdo Sofia waxay tahay in ay u dirtay ninkii ciidamada Roomaanka haystay ama boqorkii Basanta waxayna ku tiraaday hadda magaalada Bursa waxay ku jirtaa gacanta ninka la yiraahdo Usmaan Bey ama gacanta Turkida hadii aan laga soo gaarin ninkiina aad iyo aad ayuu xanaaqay waxuna soo diray abaanduule aad iyo aad u halis badan oo maskax badan ninkaas oo in badan rajeynaya Mudan Uthman inuu ka hor yimaado hadaba daawada ninka waxa la yiraahdaa Galadios waa nin ku wanaagsan dhanka ay ku dagaalanka seefta sidoo kale waa nin karti badan oo na jeclayn nasashada markasta waxa uu jecel yahay hawlgal iyo dagaal inuu ku jiro hadaba daawada hayga degdegin arinta ugu muhiimsan qaybta dambe ay tahay ee gabadha la yiraahdo Bigum Hatum ayaana ah sheekadeena quruxdeeda waxa laga yaabaa daawada inaad weydiinaysid Bigum Hatum qaymad weeyaan Mudan Uthman way qaayntay Mudan Uthman sidoo kale waxa uu dilay ninkeedii kollo ma heshiinayaan maxaad ka wada deeqow daawade Mudan Uthman waxay hadaba noqon doontaa shimbir khayr leh ku qanaca ma ku qancin ee gabadha la yiraahdo insaan biiki iyo sidoo kale wiilkeedii Sargum markay ay dilaysay gabadha la yiraahdo Sofia qofka kaliya tayarkii marxaati ku noqon karayo waa gabadha la yiraahdo Bigum Hatum Mudan Uthman isagoo xaalku aad iyo aad ugu xun yahay ayaa gabadhana waxay u sheegi doontaa sirtan waxaana ku dhihi doontaa Mudan Uthman qofka dilay insaan biiki sidoo kale Sargum aniga aqoon ayaan u leeyahay waana garan karayaa midaasina waxay noqon doontaa sababta Mudan Uthman uu cafin doono gabadhan maadaama la jeclay qaabka filimka uu matalaysay sidoo kale dabeecadaheeda ninkana Maxamed Boosdaal leeyahay aad iyo aad ula dhacay sida ay uga soo baxday dhanka wanaagga iyo dhanka sidoo kale xumaantaba gabadha la yiraahdo Sofia ayayna u sheegi doontaa in wax walba ay ka dambeysay waxayna ku dhaysaa Mudan Uthman waxa shirqoolka ka dambeeyay sidoo kale sababay waa gabadha la yiraahdo Sofia ugoona daawade ninka la yiraahdo Mudan Uthman arintan waa uu ogaaday isla markadiiba inay ka dambeysay gabadha la yiraahdo Sofia waxa uu noog yahay badashay taamadaas wax walba inuu ku suurtoobo ninka la yiraahdo Olga Tuuqan way adkaan doontaa si looga dhacsiyo Mudan Uthman markan inuu na dilin ee disay gabadha la yiraahdo Sofia waxaana markan ninkaas la yiraahdo Olga Tuuqan uu raadin doonaa cadeyntan oo dambe waxay soo gubiyay shabad doontaa ninka la yiraahdo gabadha la yiraahdo Sofia sida aan aaminsanahay daawada ama sida suuqa ku jirtaana waxay tahay in gacanta lagu soo dhigi doono ninka la yiraahdo Heristo kadibna wax walba uu qoran doono oo dhihi doono gabadha la yiraahdo Sofia ayaa wax walba ka dambeysay si noloshiisa uu badbaadsado isla halkaasna isaga ayaa kow laga siin doona oo nolosha looma ogolaan doono sidaasna waxay ku noqon doontaa gabadha la yiraahdo Bigum Hatum mid mar kale kasbata
mudane Cuthmaan kalsoonidiisii ninkii la yiraahdo Yuusufna aad iyo aad ayuu arrinta ugu farxi doonaa daawadoogow arooska Yuusuf iyo sidoo kale gabadha la yiraahdo Faatuma waa uu soo dhawaaday xalqadaha inagu soo foodo lehna waa uu dhici doonaa inta uuna dhamaanin gooskooskani maadaama hadda gabagabo uu yahay daawada waxaad isweydiinaysaa sidee ayuu hadaba gabagabo u yahay taxanaha Kululus Cusmaan isagoo oo maraya meelihii ugu xasaasana sidoo kale ay ku soo biireen laba hogaamiye aad iyo aad u awood badan daawada waxaad wada ogtahay sida taariikhiyan ah mudane Cuthmaan inuu ku dilgooriyooday isagoo go'doon ku haya magaalada Bursa gabadha la yiraahdo Sofiana sababta uu dalbatay ninkii la yiraahdo Gladius waxay tahay inuu badbaadiyo magaalada Bursa mudane Cuthmaan saad ogtahay taariikhiisaba magaalada Bursa soo go'doon ku haya ayuu dhintay mudane Cuthmaan markan soo uma jahaysnaba oo uma wajahayo magaalada Bursa sidoo go'doon uu gelin lahaa daawada hadaba sababta kale tin ku sheegay waxay tahay gabadha la yiraahdo Bigum Hatum haday qarsa arrinta inay dishay gabadha la yiraahdo Sofia ninka la yiraahdo ninka soo goom haya sidoo kale hooyadii insaan biki gabadha xaliimaha ayaa soo ogaan doonta xogdaas mudane Cuthmaan la wadaagi doonta hadaba daawade haddaad u baahan tahay sida macquul ay noqon karaysa in xaliima wax walba soo gudbiso mudane Cuthmaan soo qora waan u baahanahay leegtiisuna ha fara badato waxa ugu ballan aniga in idin soo geliyo muuqaalkiisu aad iyo aad u faahfaahsan waad ku mahadsantahay daawashadaada haddaad muuqaalka heshay like sar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay muuqaalkan mid xigeenaa ku kulmo doona waxaan ilaahay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh